أذكر إبراهيم أحمد إبراهيم أنا ديسي مدرسة برنا إلى جنة فرتوسا كورابي أنا ديسي الله بركيه الله قرآن برنا ما شاء الله isku duwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka Awdal ay u heliyaan mas'uuliyiin iyo qurbajoog iyo qolqoljoog ayaa maanta xaafadda Sanlaawaha ee ka tirsan deegaanka Jaara Horoto ka daafuray madrasadda Sanlaawe oo halkaas laga hirgeliyay isla markaana hirgelinta madrasadani ay iska lahaayeen Ibraahim Axmed iyo qoyskiisa isla markaana dhisay madrasaddan oo ay baahi weyn u qabeen bulshada deegaankani ayaa saaka waxa munaasabad ballaaran oo xadhigga lagaga jaray madrasaddaasi ka soo qayb galay oo qaal waxgarad aqoon-yahan bulshada deegaanka waliba sidoo kale mas'uuliyiin kale iyo qurbajoog waxaana halkaas ugu horeyntii ka hadlay bulshada deegaanka isla markaana sheegay baahi weyn ay u qabeen madrasadani waxayna yiraahdeen runtii madrasadani marxalad kala duwan bay soo martay horta waa Ilaahay mahadiya madrasadani waxa weeyaan marka hore waxay ka soo bilaabantay geedka hoostiisa ayay ka soo bilaabantay waxa weey geedka hoostiisa ku dhiganayeen waxa weey bacad iyo roob iyo wax weey dayacba way soo laasteen laakiin maanta alxamdulillah daartaas ay maanta ku jiraan alxamdulillah kan waxaan uga mahadcelinaynaa adeer Axmed ayaan uga mahadcelinaynaa oo runtii maxay kaalin mugle oo arinta aad iyo familigiisa arinta maxay heeday iska saaray xilweyn iska saaray waa ma sha Allah waxaan rajaynaynaa dad badan inay meeshan ay soo saarto oo waxa weeyaan dadka deegaanka degan inay dad badan maxay heeday soo saarto marka waxa weeyaan shalay waxaan joognay shalay waxaan leenahay hal la dhiso maanta waxa lagu dhigtaan leenahay waxaan leeyahay madrasadda aad noo dhisteen oo aan iniga gudoonay waxaan leeyahay Ibraahim Axmed Cabsiye waan ka gudoonay ilaahay jannatul firdawsa kuugu dalma leenahay aad baan kuugu mahadnaqanaa waxaan halkan warbixin ka bixinayaa ardayda yaryar ee maanta loo soo dhisay madrasadda iyo adeecadii iyo geedkii hoosteedii iyo dhaxantii iyo wixii oo dhan maanta laga soo xareeyay Ibraahim Jimce iyo xaafadiisa iyo waxaan maanta wax loo mahadnaqayaa si fiican waan ugu ducaynaynaa si wanaagsan maanta ardayda yar oo u taqabalay ee maanta dhaxantii adeecada ka soo xareeyay annaguna waan ugu mahadnaqanaa qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka soo qayb galay waliba sidoo kale culimada diinka iyaguna halkaas ka hadlay ayaa waxay Ilaahay uga bariyeen meesha uu ka soo saaray meel ka khayr badan uu ugu bedelo Ibraahim Axmed iyo qoyskiisa oo iska lahaa dhiska madrasadani ayaa waxay tilmaameen maanta waxaynu joognaa inaynu xadhigga ka jarno madrasadda Sanlaawaha oo ay hirgeliyeen qoyska Ibraahim Axmed Cabsiye iyo marwadiisa Safiya Maxamed Mooge iyo caruurtooda oo dhammaantood gartay inay deegaanka u dhisaan madrasadda waxaan leenahay Ilaahay ha idinka abaalmariyo halkaad ka soo saarteen wax khayr qadan ah idinku bedelo anigoo kamida xildhibaanadii halkan laga doortay oo shacabkana ka wakiila waxaan halkan mar labaad iyo mar saddexaad ba uga mahadnaqayaa qoyska Ibraahim Axmed Cabsiye waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin jasaakallahu khayran qoladii soo dirtay Sheekh Ibraahim Axmed Cabsiye iyo marwadiisa iyo xaaskiisa meesha ay ka soo bixiyeen wax khayr la Ilaahay horta ugu bedelo dadka ay soo dhimeen ee dhismaha ka geystay injineerku horeeyo Maxamuud iyo ay ku jiraan waxaan iyaguna leeyahay jasaakallahu khayran amaanadii alla inii soo dhiibay waa soo gaarsiisay dadkii waxa weeyaan meesha waa la inii dhisay waxaana la inagu dhisay inaad diinta ku barataan waxa maanta farxada inaan ka soo qayb galo furitaanka madrasaddan Sanlaawe oo ay la soo baxeen qoyska Ibraahim Axmed Cabsiye Ilaahay waxaan uga baryaynaa reerkaasi sadaqada ay la baxeen in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala jannada firdawsa abaalkooga uga dhigo waxaan ku dardaarayaa walaalahayga loo dhisay ee deegaankan degan madaarista waa la dhisaa laakiin wax loo baahan yahay gacanta lagu hayo oo la daryeelo marka anigu waxaan ku dardaarayaa dadka deegaankan nimcada Ilaahay u keenay Ilaahay wuxuu wa inta cudu nicmatallahi la tuhsuha hadaad nimcooyinka Ilaahay tiraadaan ma tirin kartaan nimcada islaamka ugu weyn maanta kitaabka Ilaahay baa inoo yimid nabigu wuxuu yiri khayrukum waxa inagu khayr badan man ta'allama al-qur'aana ninka quraanka bartay oo callamahu dadkana baray quraanka Ilaahay sida ragaa oo sheegay walaalkeen kaamil yaani culimadaas dadka soo gaarsiiyay annaga culimadii waxna bartay waxa kamid ahaa Allah u naxariistay Axmed Musamacaad oo daahir Musamacaad ee walaalaha haayeen oo cad mudoon quraanka nagu baray quraankii ayna bareen unba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala nagu anfacay oo Carabigana ku baranay waa run qoyskani soo hirgeliyay madrasadani
waxay arkeen uun carruur yaryar oo badan oo geed hoostood fadhiya kadibna si degdeg ayay uga soo jawaabeen waxay goosteen inay madarasadaasi halka ka taagaan carruurtii bacadka ku dhiganaysayna ay ku dhigtaan waxa weeye meeshaas waa waqti ilaahay oo loo taagay qofna ma laha laakiin waxa loo baahan yahay inaynu ka faa'iideysano dadkii loo dhisay ka faa'iideysataan aad dayactirtaan aad nadiifisaan walaalayaal waa waajib in aan ka shaqeyno kitaabka ilaahay dhammaanteen addoommo weyn ilaahay baa inagu addoonsaday waa kalaamkii ilaahay inaan kor u qaadno oon baranno ayaa laynooga baahan yahay maxaa yeelay cidda barataa ilaahay kitaabka ilaahay kor buu u qaadaa ummadda ka jeesataa ilaahay hoos buu dhigaa ilaahay waxaan baryanaa intuu ilaahay kitaabkaa cisaysay ee ilaahay kor u qaaday inuu ilaahay naga yeelo weliba xaafaddan waxaan ugu hambalyaynayaa oon ugu bogaadinayaa oon leehay ilaahay haydigu anfaco ilaaha maanta ugu deeqay madarasadaasi labada fasal ee quruxda badan leh ee agabkeegii iyo maraafiiqdeedii la socdaan ilaahay waxaan baryanaa cidda ibraahim axmed cabsiiye iyo owlaaddiisa xaaskiisa intaba ilaahay inuu ku barakeeyo maxaa yeelay camal weyn ayay guteen oo ilaahay hortiisa qaali ku ah innaguna maragan uga nahay haddaba iyagu maanta waajibka ah hadday guteen maxaa loo baahan yahay cidda maanta loogu deeqay ee iyadoo soconaysa ilaahay u keenay maxaa laydiiga baahan yahay dhammaantiin waxaa laydiiga baahan yahay inaad gacmaha isku qabsatiin owlaaddiinna aad keentiin geedka ay soo fadhi ilaa geedkaa maanta halkaa waad arkaysa dabaysha dhacasa ciyaalka yare geedkaa yar ku hoos dhigan jiray kolna boodhka kolna cadceedda waad arkayseen ilaahay baa mahadle ciddii inoo dhisayna waannu mahadnaqannaa oon lehna ilaahay jasihii weyn allah idiga siiyo halkaad ka soo saarteenna tuka weyn oo ka ballaadhan allah idi siiyo aakhiriya adduunyadana qoys barakale allah idiga yeelo bulshada deggan xaafadda sallaawaha waxaana hubaala in aad ku intifaacasiin ilaahayna waxaan ka baryanaa subxaana wa tacaala inuu ilaahay inagu liibaano ilaahay muraadkaan ka leenahay ina gaadhsiiyo sheekh axmed cabdilaahi oo maxamed qalinleh mas-uuliyaddii furaha adigaan kugu wareejinay insha allahu ina sideeda ammaanada gudatana waanu kaa rajaynaynaa waa aqbalay waanu ducaynaynaa ibraahim axmed oo cabsiiye oo noo soo dhisay madarasadaas annagoo in badan geedaha hoostooda ku dhigananay oo siigada iyo dabaysha iyo roobka na dhamayeen maantana alxamdulilah rabbilcaalamiin furihii baa laygu wareejay madarasadiina waa noo dhisay Shucayb Maxamed Kaan Shucayb Bigays